istaaga waa markay adkaato inay saxrada timaado. Waxaa yaraada dhaqdhaqaaqa caloosha mise calool socodka. Inta badani waxaa calool fadhiga lagu arkaa carruurta, gaar ahaan markay isbedelaan cunada ay qaadanayaan. Calaamadaha calool istaaga kuwa carruurta iyo dadka waaweyn wax farqi ah uma dhexeeyaan, waxaan ka ahayn habka ay cabashadooda u soo kala gudbiyaan. Calaamadaha lagu garto calool fadhiga carruurta waxaa ka mid ah inay calool xanuun dareemaan, inay saxrada adeeg iyo qalaalba noqoto, inay xanuun dareemaan xilliga saxrada, gaar ahaan waxay diidaan suuliga, inaad surwaalka hoos kashiga mise negiska ku aragto raadadka saxrada, in dhiig lagu arko saxrada dusheeda. Calool istaaga carruurta inta badani wax dhib ah ma keento, laakiin haddii ay sii socoto muddo fog, waxaa macquul ah inay keenaan calaamado iyo xaalado kale. Sidaa awgeed, waxaad u baahan tahay inaad la kulanto dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow haddii aad carruurtaada ku aragto cuno qaadasho la'aan, qandho, calool barar, saxaro dhiig, miisaan mise culays lumid. Waxaa jira arrimo kala duwan oo carruurta ku keeni kara calool fadhiga. Waxaa ka mid ah inay suuliga ka baqaan mise ay diidaan xanuunka ay kala kulmayaan xilliga xaajada. Haddii cunada ay qaadanayaan ku yar tahay faybarisku waa qayb ka mid ah karbohaydraytska jirkeena awood uma lahan inuu burburiyo 100%. sidaa daraaddeed, waxaa la soo raacayaa saxrada si ay calool socodka u wanaajiso. Haddii uu isbeddel ku dhaco caado maalmeedka carruurta, sida in la aado safarada, jabiyada kuleelaha, waayo waxay saameyn ku yeelan karaan calool socodka. Haddii familiga horay u lahaa calool fadhiga, waxay u badan tahay inay carruurta yeeshaan. Sidoo kale, caanaha lo'da waxay keeni karaan calool istaag. Calool fadhiga waxaa u nuglaan kara carruurta ay ku yar tahay cabidda biyaha, carruurta ay ku yar tahay faybarska, carruurta dawooyinka qaar qaata, carruurta ku dhasha mise leh xanuunada la xidhiidha dareemayaasha neurological disorder, iyo fadhiga badan. Qaabka ugu wanaagsan loogu hortagi kara calool fadhiga waa inaad carruurtaada u kordhiso mise aad ku dhiirageliso cabidda biyaha, in ay qaataan cunada laga helo faybarska, inaad u qaabayso tababar la xidhiidha suuliga, inaad carruurtaada ku abaalmariso dadaalkooda. Calool fadhiga haddii la daweyn waayo, waxaa dhici kara inuu dalooshamo maqaarka ku haraysan futada. Waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa anal fissure, inuu malwadka dibadda ka soo